بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا عبد السلام محمد. channel قاعد دعوني سيدنا عبد السلام عقيل. فضلا هديات وصوت هاي channel and subscribe صار سيدو كلام محبو and دور shortcut أو كسابسن Office 2010 وأنا كان عم شرحينه 2016 Office and marka waxaan rabaa inaad shortcut-ka ugu horeeyo hadii aan soo qaadano wuxuu inoo noqonayaa control N oo yani sidii aan u furan lahayn page cusub ama document cusub. runtii markii aan rabno inaan document cusub furano waxa noqonaya inaad tagto halkan ay ku qoran tahay file kadibna aad dhahdo new si markaasi aad document cusub soo furato aad wax ugu qorato. warka inta aan ku dheeraan waxaan sameynaynaa aan wada aragno waxaan taabanaynaa control N. hadda u jeedaa in document cusub oo ii furmay oo document 3 anagoon iswaalin oo wax dhiba aanan sameynin oo intii aan tagi lahayn halkan ay ku qoran tahay file kadibna aan ku dhufan lahayn new si fudud ayaan waxaan ugu dhufanay control N oo halkan inoogu qoran. okay midka labaad aan u gudbayno ama shortcut-ka labaad ee halkan inoogu muuqda ayaa wuxuu yahay sidii document inoo furan aan u xiri lahayn. documentiga uu inoo furan yahay waan iska xiraynaa. okay marka documentigan oo kale inoo furan waxaan rabnaa inaan iska xirno anagoo aanan taabanin halkaas cancel-ka ay ku qoran tahay. tusaalahaan halkaas cancel-ka ay ku qoran tahay anagoon taabanin waxaan sameynaynaa control W ayaan ku dhufanaynaa. waxaa taabanay control W waa kaas ugu xirnay. okay midka saddexaad ayaa wuxuu yahay document aan qornay ama tusaalahaan cashiro ama wax aan diyaarsanay ayaan rabnaa inaan save gareyno. marka inta waxaad okay aan weyneyno weyn aan ka dhigno si loo arko waan qornay hadda waxaan rabnaa marka inaan save gareyno. okay marka sidaas asalka waxaa imaanaya halkan ay qoran tahay file kadib ayaa waxaa ku dhufanay halkaas save ay qoran tahay. marka anaga sidaas oo dhan weygaas saas u dheer dhan marabno kaliya waxaan rabnaa inaan shortcut aan isticmaalno. marka shortcut-ka isticmaalayna waxaa waaye control S adigoon iswaalin. control S markii aad taabato qoraalkan oo kale hadda inaan mar labaad aan soo celinaa rabnaa. marka qoraalkan sidaan inta aan rabno kadib control C ayaan taabanayna qoraalku inuu ku biyeysan yahay. marka qoraalka waa ku biyeystay sidaas ayuu ku biyeysan yahay. okay hore aan sii socono qoraalku waan ku biyeysanay waxaan rabnaa marka hadda qoraalkan aan ku biyeysanay inaan halkaan aan dhigano. okay marka waxaan rabtaa inaan halkaan dhigto waxaan sameynay control V hadda waxa aan ku biyeysatay paste oo kale waa control V. tusaalahaan mobilka ama computerka markii wax meel aad qaadaysid copy ayaa leedahay kadib paste ayaa leedahay. marka adigoon hadda iswaalin meeshii aad saan ka dhihi lahayd qoraalkan hadda oo right click aad taaban lahayd control V waxaa arkay qoraalkii oo badan control V waa kaas. control V waxay inoo qabanay means paste okay hore aan sii socono control Y maxay inoo qabanay marka iyadana control Y waxay inoo qabanay read yani qoraalkii ee dib inuu soo celinay. okay control Y iyadana waa kaas soo qoraalkii dib inuu soo celinay soo mujid waa kaas waa badsanay inta aadid ka dhiganay control V oo kale. okay waxaa inoo dhiman hadda fartaan oo intaan inoogu qoran ayaan waxaan rabnaa marka
inaan size-ka aan weynino ama size-ka farta aan badino. Tusaalahaan hadda size-ka inoo dooran waa 14. waxaan rabnaa inaan ka dhigno tusaalahaan 15 ama 20 oo kale. okay, marka ways badanaa jiraan inaa halkaan imaado kadibna aad saas ugu darto. halkaas ma jeedo hadda 22 waa farta ugu weynaatay, ama highlight saare iyada ku soo bixayso. waa ka isla meeshii adigoo aadan ka dhaqaaqin ay kugu soo bixaysaa oo kadibna waa yareynay. okay, marka anaga sidaas dhammaan rabno. waxaan rabnaa marka anagoo meeshaas tagin inaan shortcut aan isticmaalo. waxaan sameynaynaa control ayaan taabanaynaa kadibna close bracket-ka ku dhufanayna. okay, horta highlight inoo saar. highlight markii aad saarto control aad qabanay close bracket-kaas ku dhufanay farta way soconay way weynaanay. okay, increase waa hada farta yani waa weynaysay. waxaa dhiman marka degrees marka aad ku sameynaysid oo farta aad inaa yarisid waxaa taabanaya halka open bracket-ka. soo ma jeed waa kaas farta way yaraanaysaa kadibna meesha halkaan ayaa ka weynaynay halkaas ayaadna kasii yareynaysaa. okay, hore aan sii socono. waxaan soo qaadanay haddii xoogaa dib aan u laabano control n oo ah open new document, oo si aad u furan lahayd document cusub adigoo aadan iswaalin aad tagin halkaan ay qoran tahay file kadib new aadan dhihin ayaa waxaa taabanaya bes control n waxaana meesha kugu furmaya document cusub. sidoo kale waxaan soo qaadanay shortcut-ka labaad ama hadda aan qaadanaynaa oo magaciisa la dhaho control w oo means ah close, oo documentiga kuu furnaa inaad iska xirto adigoo aadan taabanin cancel-ka. oo waxaa taabanay control w kadib close waayo ku xirna. okay, sidoo kale waxaan soo qaadanay control s oo ah documentiga save garay, oo sida aad u save garaysan lahayd waxaa taabanay control s. okay, hore aan sii socono. copy it means control c halkii aad ka dhihi lahayd qoraalkaasi meel kamid ah inaad dhigtid ama qoraalka aad copy-yeystay documentiga kuu furan inaad dhex dhigto. okay, waxaa sameynaya marka adoon iswaalin qaadanay shortcut-ka lagu magacaabo ama shortcut-ka ah sida farta loo weyneeyo iyo sidoo kale loo yareeyo increase iyo decrease size oo fonts-ka iyadana waxaa okay, hadan waxaan galaynaa control z oo ah endogan waxaa waaye tusaalahaan hadda qoraalkan ayaa qortay wuu kaa tirmay backspace ah intaan dhan kaa tiran. oo markaan waxaa sameynay intaas markii ay kaa tirantay maadan khasaarin. okay, waxaa sameynay ama waxaa taabanay shortcut-ka ah control z oo waxaagii dib ayay kugu soo laabteen. okay, hadda sidoo kale waxaagii dib ayuu kugu soo laabtay. control y haddaa taabtid asna dib ayuu kaaga laabana. shortcut-ka si fiican u faham. control y markaa taabtid wixii gadaal aad kaga soo dartay oo dhan dib ayuu laabana. okay, control z dib ayuu kugu soo laabtay. okay, marka haddana waxaan rabnaa inaan dhammaan waxaan oo dhan yani control all weli ma gaarin. waxaan rabnaa inaan taabano control f oo ah find. tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan raadino assalaamu calaykum oo inta inoogu muuqataa rabnaa inaan raadino inta assalaamu calaykum ah. okay, control f ayaan taabanay. control f waxaa lagu dhahay marka navigation. okay, waxaa gelinaya halkaan searching ay qoran tahay xarafka aad inaa raadisi. okay, assalaamu calaykum soo ma jeed inta assalaamu calaykum ah waxaa lii saaray color yellow ah soo uma jeedid. marka tusaalahaan hadda dhammaan waxaan oo dhan ayaa rabaa inaan farti ka bedelo ama inaan iska delete gareeyo ama inaan tiro. waxaan taabanaa marka control a oo ah control all oo dhammaan wixii meesha ku jiray inay hal mar highlight ku korayaan. okay, control a waa shortcut aad muhiim ah isna. sidoo kale halkaan waxaa inoogu xiga
shortcut keeni ugu dambeeyay oo 12 oo caawa aan qaadanayno oo ah control D oo ah point box oo dhanka farta. Okay, dalahan control or control D waa asna qaybta farta. Okay, point soo mid hada baadigan heading faraha inta artid farta artid fartaas ayaa ku fatay. And okay, point style kaas boldiga hada artid waa ka bedelay oo waxa ka dhigay regular sida caadiga size ka inta tirada numberka oo ah qaybta farta laga xukumo ama qoraalka laga xukumo. halkaas ayaa tagay kadibna waxa artid ayaa ka bedelay. Okay, halkan ayaa ku joojinaynaa oo 12 kan shortcut. fadlan hadii aad channelka cusub tahay waxaan ku leeyahay fadlan subscribe saar, asxaabtaada la wadaag, share garee, like saar waa muhiim si aan muuqaalo kale cusub oo idin xiiso geliya aan channelka soo dhigo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.